laba kamid ah dilsugayaashii lagu helay dilkii iyo kufsigii Caasha Ilyaas oo sanadkii hore lagu dilay laguna kufsaday magaalada Gaalkacyo ayaa waxa saaka lagu toogtay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. toogashadaas ayaa waxa fuliyay ciidamada Puntland oo qoyska Caasha ay u wakiisheen in ay qisaastaasi u fuliyaan. labada nin ayaa lagu toogtay fagaare ku yaala magaalada Boosaaso. labada nin ee la toogtay ayaa kala ah Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige, halka muddo 10 cisho ah dib loo dhigay toogashada Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame. wararku waxay sheegayaan in sababta dib loogu dhigay toogashada dilsugahaasi ay tahay in uu dalbaday Ilyaas aadan oo ah Caasha aabaheed. hase yeeshee lama xaqiijin sababta rasmiga ah ee dibdhigaasi iyo sidoo kale haddii ay jirto sababta uu dalbaday Ilyaas. toogashada lagu fuliyay raggaasi ayaa la soo ogaa waxaana 12 bishii hore shaaciyay xeer ilaalyaha guud ee maamulka Puntland. dad badan ayaa aad u soo dhaweeyay kana warsugayay in cadaalad ay hesho Caasha Ilyaas oo bishii February ee sanadkii la soo dhaafay 2009 la isugu daray kufsi iyo dil.